السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيرليد الصومالية ونوحرون وحيد اللي رمضان مبارك وعلى شن عوضة رمضان إلهي نجا أقبل عبادة maantay waxaa kusoo qaadanaynaa calaf ka mid ah calafyada xoolaha waxaan ka codsanayaa in dadka aad beeraleyda kala duwan inaad gaarsiisiin biidnillah si ay uga faa'iideystaan la share garaysiin intaan noo subscribe garayn ay subscription ka saaraan like ta saaraan insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka wada faa'iideystaan cashirkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa caws la dhaho mulata 2 oo ka mid ah cawsaska loo yaqaano Brachycharia waa cawsas family ilaa 20 gaarayo af Soomaali ahaan waxaa lagu dhahaa cawsaska lihin baan isku dhahaa waa kuwa isku qoys ah waa cawsas aan laf lahayn oo xoolaha aad u jecel yihiin sidoo kalena xoolaha ku cayilaan caano badanna ku yeeshaan cawsaskan jilibka qofka ayay u gaaraan cawsaskan markay qalalaan way daataan ama way jiiftaan maadaama aysan wax laf lah oo adag aysan lahayn cawsaskan sidoo kale sal balaaran bay yeeshaan sidaa darteed tankoodu waa badan yihiin sidoo kalena xididkooda waa balaaran yahay oo yani waxa u adkeysan karaan xilliyada maarta xataa biyo yarida sidoo kale cawsaskan mira ayay ka tarmaan sidoo kalena jirida markuu roob helo dib ayay usoo u dhashaan dib ayay u dhashaan waxa ka wada yani 6 bilood haduusan roob ku dirin ama sanad haduusan roob ku diin oo xididkooda ku jira dhulka ma dhimanayo dib markuu roobka helo way soo baxayaan cawsaska Brachycharia ama lihin asalkoodu waxay ka soo jeedaan Afrika Soomaalidana deegaamada Soomaalidana way ka baxaan Soomaalida badana noocyo badan baa jiro laakiin noocyada macruufka oo laga garanayo waxa kamid ah shalbir oo qofka u gaarayo qof dhererkiisa waxaana isdhihi karaa waa cawska Mombasa wuxuu kala noqon karaa shalbirka bulato waliba aniga waxa u badinayaa wali research baa ku wada in la dhaho bulataha qalanqool waxa kale oo jiro mid la dhaho qalanqool oo asaga dadku wuxuu gaarayaa adoon ilaa jilibka ama uu ka dheeraadaa mid kale waxa jira isagana la dhaho jeebin kaas badana jilibka qofku gaaraa marka way si kala dheeriin shalbirka ugu dheer qalanqoolka ku xigo jeebin baa ku xigo noocyo kale waa jiraan marka mulato marka wuxuu kamid yahay cawsaskan lihin ama Brachycharia waana cawska ugu adkeysiga badan markii Mombasa laga soo tago Mombasa asaga waa lagu tiriyaa waana ka duwan yahay oo familka Brachycharia way ka baxsan yihiin marka la xisaabinayo Mombasa waa cawska ugu adkeysiga badan familka markii la dhaho Brachycharia ama lihin laga hadlayo waa cawska ugu adkeysiga badan dhulka maaragtay roob yarida kuleylka badan oo yani deegaamada Soomaalida oo kala ah oo sidoo kale dhulka maaragtay nafaqada ku yarto kale wuxuu awoodaa inuu maaragtay si fiican uga baxo asaguna nafaqadiisa is dhimayn yani proteinkiisa is dhimayn sidoo kale wuxuu adkeysan og yahay dhulka maaragtay aashitada leh ama la dhihi karo waa low pH kiisa uu aashitada ku badan yahay acidic soils hadda u guda galo cawska Mulata 2 waxaa sameeyay company ku yaalo Colombia ama Mexico oo Seattle la dhaho ya originalkiisa hybridkiisa waxay laba generation buu soo maray adduunka dhan maartay meel aan laga helin malaha waa caws macruuf ah haddaan cawskan usoo galo habka loo beero marka cawskan waxaa laga beeraa abuur seeds sidoo kale waxaa laga beeraa splits waxa la dhaho yani jirid la jaro oo la sii talaalo geedka jiridiisa hada soo bixiso yaa la sii talaalaa sidoo kale waxaa la sameeyaa okay habka loo beero marka abuurkii baa soo gadatay sidee baa u beeraysaa la waxaa leedahay 3 nooc inaad samayso ama 2 nooc inaad samayso inaad nursery geliso oo 6 weeks ama 6 isbuuc kugu jiro meel nursery ah ama la buubiyo qofba sidoo yaqaano aad buubiso kadib aad si samayso si talaasho transplanting ku samayso la si talaalo ama aad firdhiso marka toos aad u firdhiso toos u shineyso waa mid kale marka toos u shineyso marka waxaad leedahay option badan hadda si videogan ka muuqdo waxaad sameynaysaa sida loss faro irrigation oo habka kanaalka ah yaad u waxaynaysaa waxaa kaloo isticmaalaysaa tuubada maartay dhibcaha ah oo drip irrigation ka ah
faarowga marka iyo tuubada marka isticmaalayso 60 centimeter ba yaa ka dhigaysa sida iskugu jiraan waxaa ku soo haray waxaa kale u beeri kartaa habka la dhahayo jibaalka ya cawskan u beeri kartaa oo habka jibaalka ah yaa la isku waxaynayaa ama bashin irrigation waxaa ku soo haray marka inta samaysid cawskan marka koobaad wuxuu qaadanayaa asan u beerto wuxuu ku qaadanayaa ilaa 3 bilood inuu maartay goosmo gaaro sidoo kale marka maxaa beerto wuxuu qaadanayaa hal week ilaa 20 iyo maxaa 20 beri 20 cisho adiga iska dheh 3 weeks germination kiisa qaadanaya soo bixitaankiisa qaadanaya wixii inta ka dambeeya markuu si fiican isku soo wada raaco oo soo baxo cawskan wuxuu qaadanaya marka koobaad waxaa la siiyaa 6 bilood sidoo cawskan u ballaarto salkiisa u ballaarto hadhowna caws badan ku noqdo oo maartay goosasho aad u diyaarisid wixii inta ka dambeeya marka deegaanada Soomaalida hadaad waraabinayso waxaad goosan kartaa wixii marka koobaad ka dambeeyo ilaa muxuu ahaa 35 beribo ama 40 beri waa goosanaysaa sanadkiina waxaa goosan kartaa 6 ilaa 7 jeer kolba waxay ku xiran tahay habka u nafaqaysid sida ugu dadaashid cawskan waa caws maartay wax soo saar badan leh nafaqo fiican buu kaaga baahan yahay mar walba oo siisid fertilizer-ka ama kushiima aad dahdid nafaqooyinka inaad siisid production fiican buu ku siinayaa hadaad ku dadaasho sidoo kale marba mar ka dambaysa cawska wuxuu uga duwan waxa waaye wuu sii badanayaa marka waa ina cawskan ku dadaashid nafaqayntiisa ku dadaalkiisa waa inaad maartay xoog saarto hadaan u guda gala marka waa maxay faa'iidooyinka uu leeyahay cawskan oo cawsaska kale aan dhihi karo kaga duwan yahay number 1 cawskan waxa waaye waa caws horta production fiican leh markii cawsaska kale loo barbar dhigo oo bracharia la dhahayo ama lihin cawsaska la dhahayo la isku dhaho waxa waaye ilaa waxa laga helaa 40 tan waana ka badan kartaa ilaa 100 tan qaar ba waxay sheegan ilaa 100 tan yaadin ilaa 80 tan 50 tan yani halkii goosmo waxa laga helaa 9 tan ilaa 12 tan meesha ugu hooseysan waa 5 tan yaa hektarki keelisa hektarki way ku siinaysaa waxa ku soo haray cawskan hektarki markaad beerayso wuxuu u baahan yahay 6 ama 8 kilo ilaa 10 kilo waa la gaarsiin kolba waxay ku xiran tahay hadaad firdhinayso 10 kilo la dhaha si isku raaco marka waxaad keelaysaa halkii hektar waxaa keelaysaa 40 ugu yaraan ugu badnaana ilaa 80 tan waad gaarsiinaysaa yani markaan dhaho bales markii laga hadlayo ama xirmo markii laga hadlayo halka xirmo oo 15 kilo waxaad keeli kartaa ilaa ugu badnaan 3000 oo kilo 3000 oo xirmaad keelaysaa ugu yaraan waxaad keelaysaa ilaa hektarkii waxaad keelaysaa ilaa 2500 oo xirmo waa marka hektar ka hadlaya qodobka labaad cawskan wuxuu u badan yahay caleen buu u badan yahay marka waxaa fudud marka digestionka ama inay xoolaha maartay ay dheefshiidkiisa u fududaato ay yani cunitaankeeda aad ugu fududyahay marka waxaa lahaa dheefshiidkiisa cawskan aad buu u sareeyaa waa heer sare maadaama uu maartay jir asagoo dhanba wax laf lahayn neefka marka waxba kama soo reebayo caleemihiisana waa caleemo yani 80% cawskan caleemo waa yani 20 ama 10% ba waxay ka tahay maartay laf yar oo jilicsan ayadana neefka wax ka soo reebayn marka cawskan waxa u diyaarin kartaa inaad hay ahaan u siiso la qalajiyo oo la duuduub laga dhigo inaad asagoo fresh ah neefka sidiisa ku siiso la soo jaro sidiisa loo siiyo wax dhibaato uma keenayo ama in la shiido asaga dhanba laga dhigo waxa la dhahay silage mar badan ba silage waa ka hadli doonaa waa cawska oo la shiido marka cawskan waxa waaye palatability-giisa yani neefka inuu cuno aad buu jecel yahay yani waa waxyaalaha cuntada ay maartay xoolaha aad ugu jecel yihiin buu ka mid yahay oo maartay maadaama uu caws proteinkiisa fiican yahay sidoo kale cawskan waxa waaye proteinkiisa ayaa sareeyo wuxuu gaaraa ilaa wuxuu awood u leeyahay inuu gaaro 18% wuxuuna caadiyan wuxuu dhaxeeyaa 14% ilaa 18% marka waxay ka dhiganta marka proteinkiisa inuu sareeyo oo maartay cawsaska u nafaqada badan uu ka mid yahay marka laga hadlayo xagga maartay naaxinta xoolaha cawskan baaritaan lagu sameeyay laba wadan lagu sameeyay Mareykanka iyo Mexico waxa la soo ogaaday neefka ama xoolaha lagu qoodiyo ama lo ahaado ama ari ha ahaado
siiba lo baa lagu quudiyey inuu neefkii maalinta ku daray 400 ilaa 600 gram markii la fiiriyey ayagoo la siin wax kaloo raashin ah. marka 400 ilaa 600 gram you daily neefkii maarta lo'da ahaa oo lagu tijaabiyey uu maarta ku kordhiyey. marka waxay ku tusinaysaa inuu ka mid yahay cawsaska ugu fiican xagga naaxinta xoolaha markii la siinayo. waa caws aad u muhiimsan. cawskan markii lagu quudiyey neefka irmaanka ah wadanka Mareykanka xilliga roobka wuxuu u qaaday neefka caanihiisa wuxuu kordhiyey 23%. xilliga abaarahana marka neefka lagu quudiyo 11% buu kor u qaaday. wadanka Mexicana markii lagu quudiyo neefka يعني Mexico waxa waaye waa dhul nafaqo badan markii loo barbar dhigo ciidiisa nafaqo badan tahay dhanka wadanka Mareykanka kana jawi fiican yahay. marka wadanka Mexico wuxuu gaarsiiyey ilaa 30% buu caanaha kor u qaaday. marka halka waxa inooga cad maadaama cawskan uu proteinkiisa uu badan yahay in uu sidoo kale caanaha iyo xagga naaxinta labadaba ku fiican yahay oo in laga faa'iideysto mudan tahay. sida hore u sheegnay cawskan waa caws u adkaysi badan xagga abaarta ama abaaraha. xidid wuxuu leeyahay ballaaran. wuxuu awoodaa in waqti dheer uu dhulka ku jiro uuna isbedelin uuna dhiman kadib markuu roob helo ama waraab helo dib uu soo baxo. sidaas sidoo kalena maba productionkiisana isma bedelaya haddii aad nafaqayso ama dhul nafaqa uu leeyahay mar walba wuu sii badanaa yani wuu sii ballaaranaa. sidoo kale cawskan waa caws u adkaysi badan xagga maarta xilliga maarta aysan qoraxda jirin. cawsas waxaa jira xilliyada qoraxda ay jirin aan baxayn aan dhaqaaqayn isaga wuxuu awood u leeyahay in qorax la'aanta yani 30% in maarta qoraxda ama iftiin laga arkayo cadceeda. marka isagu cadceed la'aan xataa waa baxaya cawskan. sidoo kale cawskan wuxuu adkaysi badan yahay xagga maarta cudurrada cayayaanada cuno. sometimes cayayaano yar cuno waa jiraan laakiin waa u adkaysi badan yahay markii loo barbar dhigo cawsas kale oo isku familka yihiin. aad buu ugu adkaysi badan yahay. ugu dambeyn cawskan markaa tallaalaysa marka la beerayo waa inaadna gaarsiin muxuu ahaa 1 centimeter ilaa 3 centimeter ka hor waa ina ka hooseeyo waa inaad dhulka u gelin. markaad beerayso cawskan aad tallaalayso ama dhulka gelinayso markaad beerayso mirihiisa waa inaadna hoos gelin 3 centimeter waa inuusan kasoo hoos marin. wixii intaa ka dambeeya waxaa soo bixitaankiisa yaraanaya haddaa ciid badan kor saarto. ugu dambeyn cawskan mar walba oo aad markaad tallaalayso amaad beerayso waxaad samaysaa waxaad isticmaashaa dhulkaada hadduu nafaqada yaryahay markaad soil testiga samayso waxaad la beertaa bahasha dhab nafaqada la dhahay DAP fertilizer ama DAP oo badanaa waxay tahay muxuu ahaa 1840 yani high nitrogen sidoo kale high potassium baa ka wadaa. sidoo kale mar walba oo goosato waa inaad siisaa nafaqada ama fertilizerka high nitrogen ah mar walba top dress waa inaad ku samaysaa. hectarku waxay kaaga baahan tahay adigu 250 ilaa 300 maarta kiilo iyo kaaga baahan tahay yaa ku filan. haddaan soo koobo cawskan waa caws proteinkiisa aad u sareeyo wax soo saar fiican leh xoolaha naaxintooda ku fiican sidoo kale caanaha badiya. waana caws mar walbo la jaro sii badanaya wax badanna ka bedelaya xagga maartay maadaama aan lahay dadka maarta xoolaha dhaqdo siiba Soomaalida aad u anfacayo cawsaska anfacayo ka mid yahay. marka waa caws aan kula talinayo inay beeraleyda Soomaaliyeed ay xoogga saaraan iyo dadka xoolaha dhaqdo aad u anfacayo. marka insha Allah wixii kale oo su'aalo ku saabsan waa ila soo wadaagi doontiin laakiin wuxuu ka mid yahay cawsaska Afrika hadda markii la dhaho loogu jecel yahay ama adduunka dhanbo. inkastoo productionkiisa meeshii laga rabo markii loo barbar dhigo Super Napier iyo Mombasa laakiin waa caws aan inaba maarta isbedelayn mar walba xagga wax soo saarkiisa nafaqadiisa ay isbedelayn haddii lagu dadaalo. marka hal laga faa'iideysto maadaama maartay aan xoolaheeni maartay inaan samata bixina la rabo xoolihii ka ganacsanna rabno caanahooda ka ganacsanna rabno. marka insha Allah ka faa'iideysi wacan wabillahi tawfiiq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي مارتي خالد أولي سحكرة وحي سؤاله كجا محدو بحنتين إن شاء الله بنك جوابي دونا بإذن الله. السلام عليكم.